Ka waran haddii barnaamijyadii caawiyey qoysaska soogalootiga ah inay badbaadaan. Hadda uu difaaco qof iyaga ku noolaa. Kani waa Cumar Fateh, koritaankiisuna waxa uu argagax ku riday siyaasadda Maraykanka. Cumar Fateh wuxuu ku koray qoys soogalooti ah oo shaqaysta. Waalidkiis waxay ka carareen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya waxayna dib u degeen Maraykanka, carruurtoodana ku korinayeen DC iyo Virginia. Si la mid ah qaxooti badan, waxay ku tiirsanaayeen guryaha dadweynaha, kaadhadhka cuntada, iyo midig ayd nidaamyada ilaalinayay inay sabeeyaan xilliyada adag. Sannadkii 2021, Cumar Fateh wuxuu sameeyey taariikh isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee Soomaali Maraykan ah oo Muslim ah oo loo doorto Senatka Minnesota. Siyaasadda Fateh maaha mid aragti ah. Waa kuwo wax ku ool ah, waxayna mar horeba beddeleen nolosha. Waxa uu u tartamay kuliyadda lacag la'aanta ah ee qoysaska fasalka shaqeeya. Wuxuu ka difaacay shaqaalaha gigga ka faa'iidaysiga. Wuxuu gacan ka geystay sharciyeynta xariijimaha tijaabada fentanyl, isagoo dadka siinaya qalab ay kaga hortagaan xad-dhaafka. Musharaxa duqa magaalada ahaan wuxuu ballan qaadayaa kor u qaad mushaharka ugu yar $20 saacadii. Jooji kirada oo ilaali kiraystayaasha. Jooji wada shaqaynta booliiska ee IS. Qoysaska shaqeeya, taasi maaha mid xag jir ah, waa waqti dheer. Malaayiin muhaajiriin ah ayaa noloshooda ku dhisay barnaamijyo dadweyne sida kuwa caawiyey qoyska Fateh. La yaab maaha in qaar badan oo carruurtooda ka mid ah ay aaminsan yihiin dowladda maanad qaadaysa aasaaska sida guriyeynta, waxbarashada, iyo badbaadada. Aragtida Fateh maaha mid ku saabsan fikradda, waxay ku saabsan tahay in la hubiyo in qofna aan laga tegin. Codadka garabka midig waxay ugu yeeraan musharaxiinta sida Fateh ku soo dhuun daloolo xag jir ah. Tirooyinka sida Matt Walsh ayaa intaa sii dheer iyagoo su'aalaya in madowga carruurta muslimiinta ah ee soogalootiga ah ay weligood noqon karaan Ameerika si dhab ah. Ma ahan keliya siyaasadaha Fateh kuwa u hanjabaya, waa waxa uu matalo, isbeddelka cidda awoodda haysa, iyo cidda qeexaysa waxa ay ka dhigan tahay Maraykanka. Siyaasadda Fateh keliya ma la hadasho hal koox, waxay la hadlaan qof kasta oo aan la dareemin nidaamka. Waalidiinta lagu burburiyo kharashka waxbarashada. Shaqaalaha ka badbaadaya shaqada gigsi ay u gigayaan shaqada. Waxay ijaaratay hal ogeysiis ka fog guri ka saarid. Qoysaskii uu taabtay balwadda. Fariintiisu waa caddahay, sharafta, cadaaladda, iyo fursaddu waa inaanay ku xidhnayn asalkaaga ama xisaabtaada bangiga. Ma aha inaad ku raacdo wax kasta oo Cumar Fateh uu u taagan yahay. Laakiin ma dafiri kartid tan, sheekadiisa waa Maraykan, muhiimadiisa waa shakhsi. Saamayntiisana waa mid dhab ah. Wuxuu u hadlaa dadka dalkan ku sii ordaya, ma aha qolalka guddiga ama qolalka dambe ee siyaasadda. Runta fudud ayaa laga yaabaa inay tahay waxa cabsi gelinaya midigta iyo qayb ka mid ah bidixda, aasaaska shirkadda ee la ilaaway cidda loogu talagalay in loo adeego. Like, share, and subscribe si aad u hesho sheekooyin badan oo sidan oo kale ah.